halkan shir jiraayad baan ku qabanayna haddaanu nahay community-ga UK gobolada bariga shirka jiraayadkaas wuxuu daaran yahay arrintan maanta ku soo cusboonaatay wadankii waxaanu ka eegaynay waxaa ka weyn oo ka culus arrimaha dibadda iyo oo la hawlgeliyay ictiraaf iyo waxyaalahaas aanu ka eegaynay madaxweynaha cusub aan dooranay laakiin waxaad moodaa in arrintii ay hoos u noqotay arrintan baaristeena ilaa waxbaa la isbaarayaa wuxuu ninkii ka oo baaray weliba adigu sii ka waan ogolnay waddanka in la jeegaray wax laga baaro oo adeeb kuraya howlo badan la baaro laakiin waxaa dee inuu qof walba uu ka bilaabo halka uu joogo bini aadamku waxa weeye kulliba qofka dadku cadaalad kuma dhaqmaan qofka waxbuu sheegaa isna iskama bilaabo marka waxaan leenahay akhri cadaalad jirtaa oo nin intaan waayaba cadaalad waxa ku wareegmayno anagu cadaalad waxaan leenahay gudaha ka bilow kambaniyada xidhan laga bilaabo madbacadda qaranka cidda loo xiray laga bilaabo ee kootada lagu xiray keebarka la xiray laga bilaabo wasiiradii maaliyadda kala dambeeyay ee aan mar ahayna mid ahayn laba ahayn laga bilaabo arrimaha dibadda laga bilaabo hawlahaas oo dhan baa la rabaa in la bilaabo oo laga bilaabo laakiin haddii cid gaar la taageereeyo ama cid gaar la bidhaansado waxa weeye waddanku wuu ka sii darayaa waddankan waddan buu ahaa jira oo dadka la isku hayo madaxweyne waxaan ku leenahay waxaan kuu dooranay dadka inaad isku haysid oo dadka aad cadaalad u fashid oo haddii ay bukuuro yahay dadku ay bari iyo galbeed sinaadaan in dadka la kala qoqobo oo in gaarana horumar loo sameeyo in la cadaadiyo loo baahna waxaan leenahay waddanku waxa weeye waa waddan curdana waa waddan aan ictiraaf lahayn arrinta kor nooga qaad waddanku cadow badan buu leeyahay howlo badan baa ku xeeran geeska afrika wax ka socda waan aragnaa markaa waxaan leenahay madaxweynaha dee waddankaada lagu doorto wuxuu kaa saaran yahay ina yaroo meel ka hadlay oo raba inuu soo noqdo cod loo ururiyey markii horena codka loo ururiyey uu ku yimi baarlamanka haddeerna isla soo noqo oo marba qof calaamadinaya marba qof dabagelaya looma doorane adaa lagu doorto xil kaa saaran baan ku leenahay madaxweyne arrintaa kor u qaad oo ka qabo meesha baan kula talinaynaa haddaanu nahay haddii bukuro yahay jaaliyadda UK haddii bukuro yahay beelaha bariga ta kale waxaan kuu sheegaya aan ku darsanaya jir jaaliyadkayga beri baa nin loo doortay maxaan ku dhahdaye maayar ayuu nin ka noqday magaalada berbera waa 60kii waa nima isku family tihiin 6 bilood intaanu haysan buu gabay tiriyey dabeetana wuxuu yidhi hartiga howlo kaa doorsadaya hayse calankaaga maanta waxaa tii la mid a ummadda dhan ee somalilan nala degan ee somalilan nagula midkaa ee haddii bukuro yahay nafya maalba isku mid nahay inaad tahay oromada ka dhow oromo waxa weeye waa dad aan haddii bukuro yahay aan waddan badin la ahayn Ethiopia dad reer somalilan aad tahay oromada ka dhow oromadana waa la soo deynaya reer somalilan la soo deyn maayo oo magaca haddii bukuro harti la beegsado oo magaca daarood la beegsado harti daarood bay galaan waddan isku dhalo waddan isku qoysnahay waddan wada degannahay taasna kumay ficneen siyaasaddaada waxaan leeyahay madaxweyne wax ka bedel oo cidda kula talaysa wax ka bedel oo arrinta kor u qaad oo haddii bukuro dadka talada wax ka sii oo haddii bukuro yahay wixii aan kugu dooranay waxaan wax u dhow toona maaha wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu madaxweyne waxaa lagu doortay dalka iyo dadka inaad hogaamiso aad ku dhaqdo cadaaladdu waxay ku jirtaa ninka qaybiyaa inaanu wada qaadan oo aanad noqon qayb shay oo wada qaatay la'anno haddii aad taa ku socoto waxaa iman doonta xilli somalilan meel fog laga raadin doono taasi waa qodob waxaan kala ka hadlayaa dabagalkan la samaynayo waan soo dhaweynaynaa waa si fiican musuqmaasuqa waa in lala dagaalamo dabagal waa in la sameeyo shay kasta oo khalad ku baxay waa in wax laga qabto laakiinse waxa isweydiin leh oo arrin laga xishoodo ah hal beel ayaa la taarget garaynaya wasiiradii hore maaliyadda lama dabagelin iskuulka Sheekh Bashiir oo shakhsi la siiyey oo iskuulkii uu dhistay lagama hadlin ciidamada qaranka ee kootadu ugu wada xidhan tahay cid gaara raashinkooda seenadooda dareyskooda lama dabagelin madaxweyne bal dib isugu noqo haddii waxyaabahaas oo dhan hala sameeyo dabagalka si siman oo cadaalada ha loo sameeyo taa qodobkaasan kaga gudbaya qodobka labaad ee aan ka hadlayo wuxuu yahay shirkii lagu qabtay buurta gacan libaax aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa walaalahayo beesha garxijis dulqaad bay muujiyeen gobonimay muujiyeen wanaag bay muujiyeen isku mid baanu nahay laba ma kala nihin somalilan isku si baanu ugu wada danqanaynaa hal qodob baan ka hadlaya
waxay sheegeen 65% in beel la yidhaahdo jeegaan ay waddanka haysato waxaa leeyahay walaalaha iyo qodobka waan saxayaa iyaguna way ogyiin 65% waa runtood wax jeegaan la yidhaahdo ma jiro 50% research baanu samaynay baaritaan baanu samaynay xog rasmiya baanu ururinay madax ka kow baanu isdul taagnay waxa noo soo baxday oo aanu cadaymaheedii haynaa 50% inay beesha habarawal ay haysato waxa isweydiin leh beesha habar jeclo 10% bay haysataa waa la xisaabtamaya waxani wax sii soconaya ma aha madaxweyne cadaalad baa lagaaga fadhiyaa isla xisaabtan baa iman doona haddii isla xisaabtan iyo cadaalad la waayo waa lagu kala tegayaa Somaliland ma sii jiray